barnaamijka ciyaaraha waxaan rabaa in aan ku soo qaato laba qodob oo kala ah Pep Guardiola ma noqon doonaa tababaraha xulka qaranka ee wadanka Talyaaniga iyo Chelsea siday ku soo gali doontaa sanadka dambe shaxda 11 ciyaartoy waxaan ognahay inuu soo socdo Morgan Rogers oo 117 milyan in ay ciyaaryahankaas ka soo bixi doonaan sida aan la socono tababaraha cusub ee Chelsea u yimid Xabi Alonso waxaan ognahay in uu ku ciyaaro saddex dambe oo difaaca iyo laba ciyaartoy oo garbaha ka socoto ayagana difaaca shantaas inuu ku ciyaaro saas daraadeed waxay qasbi doontaa in Rogers iyo Palmer inay number 10 ahaan u ciyaaraan laakiin su'aashu waxay ka taagan tahay waxaan la soconaa in ciyaaryahano weerara oo garbaha ka dheeli inay haystaan oo Garnacho joogo Pedro Neto inuu joogo Esteban inuu joogo ayaan ognahay Morgan Rogers hadii lagu daro 4 ayay noqon doonaan Palmer laftigiisa garbaha ayuu ka dheela ilaa waa 6 ciyaartoy oo garbaha ka dheeli doonta marka sidee ayay ku soo gali doonaan waxaa loo maleeyaa goolhayahoodii Jimmy Sanchez inuu goolhayo oo u noqon doono saddexda dambana Hatu iyo Cornwell iyo ciyaaryahanka Luxo oo 50 milyan ay ka soo bixiyeen inay gadaal ay noqon doonaan garbaha weerarkana oo difaaca oo weerar ahaan u dhaqaaqi doona inay noqon doonaan Balestera iyo Reed James inay meeshaas waxna difaaci doonaan weerarkana ay ka qayb qaadan doonaan dhaxdana waxaa ilaali doona Fernando Fernandes iyo Concedo ayaa jooga dhaxda horey marka waxa uu inta badan u isticmaalaa laba ciyaartoy oo numberka 10 ayuu dhigaa Morgan Rogers iyo Palmer ayuu hore wada dhigi doonaa labadan ciyaartoyna waxaan la soconaa inay aad iyo aad saaxiibo u yihiin ay dad isku dhow yihiin oo waxaan la soconaa inay yihiin akademiyada Manchester City inay ka soo baxeen ayagoo yar inay meeshaas ku tababari jireen ilaa haddana saaxiibtinimadoodii ay wili ay sii socoto horena waxaa joogo Pedro oo Braziliana ayaa joogo kaasoo aan qaba aad iyo aad inuu farsamo badan hadii labada ciyaartoy oo helana inay wax weyn ay samay doonaan Rogers waxaan la soconaa Morgan Rogers waxaan la soconaa inuu garabka bidixda uu jecel yahay in uu ka ciyaaro taasoo hadii lacagaha laga soo bixiyana uusan ogolaad doonin in kaydka la dhigo mana u malay doono kaydka inuu noqon doono number 10 ahaan uu ciyaari karaa waxaa kaloo dhici karto in uu shax kale uu la yimaado taasoo Sanchez uu goolhayo oo ka dhigi doono Colwell iyo Luxon oo gadaal uu dhigi doono horena oo ka dhigi doono 4 ciyaartoy ayuu horena gey doonaa Reed James iyo Balestera ayuu labada dhinac saari doonaa Palmer iyo ciyaaryahanka Concedana wuxuu ka dhigi doonaa dhaxda ayuu gey doonaa saas markuu sameeyo wuxuu yeeli doonaa Esteban iyo ciyaaryahankan Morgan Rogersna labada garab ayuu saari doonaa Petrona number 9 ayuu noqon doonaa ciyaaryahankan oo Palmer wuxuu noqon doonaa number 10 ahaan ayuu ciyaari doonaa nidaamkaasna uu ku ciyaari doonaa oo waxaan la soconaa Alonso inta badan inuu jecel yahay saddex difaaca inuu jecel yahay hase yeeshee Chelsea oo lacag badan la geliyay ciyaaryahankan waxaan la soconaa in kooxda ay rabtay Arsenal inay gadato hase yeeshee Chelsea inay degdeg ay ku dhaqaaqday ee Villana dhaqso ay lacagaha u gaartay taasoo aan la soconay Chelsea inay kooxaha lacagaha qayb u kala dhiibi jirtay laakiin hadda waxay u badan tahay inay toos lacagtooda u wada siiyaan kooxda Villa oo laftigeeda rabta ciyaartoy in ay soo gataan oo waxaan ognahay inay laftigooda Champions League ay dheeli doonaan oo Tielemans laftigooda uu ka tagay marka inay xoojiyaan ayay rabaan laakiin ma u maleynaa lacagahan badan oo kooxaha waaweyn ay bixinayaan inuu Omre oo bixi doono sanadka dambana tartanka ayuu kula jiraa laakiin wuxuu keeni doonaa ciyaaryahano oo macquul ayuu keeni doonaa oo ciyaaryahankii Wolves Gomez ayuu hadda la soo wareegay oo dhaxda ka dheelo garbahana ciyaartoy kale ayuu raadi doonaa oo waxaan qabaa Omre inuu lacag yar ciyaartoy ku keeni doono shaqo fiican oo qaban doono hadii aan u gudbo dhanka iyo Talyaaniga Pep Guardiola waa la soconaa City inuu ka tagay ujeedkiisa weynna waxay ahayd inuu qaramada oo qabto oo kooxaha waa ku daalay oo Spain ayuu ka shaqeeyay wadanka Ingiriiska ayuu ka shaqeeyay wuxuu ka soo shaqeeyay wadanka Jarmalka na aad iyo aad uga soo shaqeeyay waxa loo maleynayaa xulka Ingiriiska inuu qaban doono hase yeeshee Talyaaniga waxaan la soconaa 3 sano 3 oo koob oo adduun in aysan ka soo qayb galin oo kii Ruushka ka dhacay inaysan imaan kii qadarna inay ismaan kii haddana saddexda wadan lagu qabtay Canada iyo America iyo Mexico inaysan ka soo qayb galin taasoo Talyaaniga 4 mar ay ku guuleysteen ciyaaraha adduunka magac weyn ay ku leeyihiin laakiin hadda
dib u dhis ayay wadaan, taasoo la leeyahay Pep Guardiola Spain ayay ugu tageen oo ciyaaryahano waaweyn oo Talyaaniga ayaa u tagay oo wada hadalla la furay, taasoo loo maleeyo inuu qaranka Talyaaniga uu qabto. marka Maldini ayaa kamid ah ciyaaryahankii hore AC Milan. ninkan Pep Guardiolana Italy ayuu ka ciyaari jiray waqtiyadiisii dambe, luqadda Talyaanigana si fiican ay ugu hadlaa. sida aan la soconana Spain iyo Talyaaniga wax weyn uma dhexeeyaan, waa dad aad iyo aad isu leh. dib ayayna rabaan inay usoo dhisaan. haddii ay la wareegaan qaranka Talyaaniga, ma qaba aniga Pep Guardiola keligiis inuu wax ka qaban karo qaranka Talyaaniga. qaranba sidiisa daama qashay waa kooxaha wadanka in lasoo dhiso. xilligii Talyaaniga kooxooda ay fiicnaayeen oo aan dhehe qarankooda oo fiicnay, kooxa fiican ay haysteen AC Milan iyo Juventus iyo Inter Milan iyo Napoli iyo ayaga ayaa Yurub ahay wadamada ugu fiican kooxaha, laakiin hadda hoos ayay u dhaceen. marka taasna waxaa qasbi doontaa in kooxaha Talyaanigana lasoo dhiso, lacaga la geliyo, ciyaartooy fiican oo Talyaaniga lasoo dhiso sidii Isbaanishka oo kale ay usoo dhisaan. marka qaabkaas oo kale ayaan u malay doonaa inay fikradaas ay wadaan oo ciyaarihii Talyaaniga dib loo soo celi doono. inkastoo Ingiriiska laftigooda ay rabaan inay Pep Guardiola laftigooda ay la soo wareegaan, ay ku tali jiraan haddii uu ogolaado Pep Guardiola xulka Ingiriiska inuu qabto in Tuchel ay raacday doonaan. laakiin arrintaas aad iyo aad ayay u adkaa doontaa. waxaan horey suuqa laftigeeda u maqalnay wadanka Netherland laftigiisa wada hadalla inay Pep Guardiola ay kula jireen. marka xagee ayuu u dhici doonaa? ma Talyaaniga ayuu aadi doonaa? xagee aadi doonaa? kulley wadan ayuu qaban doonaa. waxaan isfiri doonaa Faransiiska inuu tegi doono, Zidane inuu qaban doono. Faransiiskana wax weyn oo dhiba uma baahna qarankooda dib u dhiskooda. Jarmalkana kulub ayaa tegi doona oo waxaan qabaa inuu wax ka qaban doono Yogur kulub. marka Talyaaniga iyo Ingiriiska runtii ciyaartooy aad iyo aad u fiican ayay haystaan, laakiin macalinkan Jarmalka waa macalin difaaca, mana u malaynayo inuu heer weyn oo koob lagu qaado inuu gaarsiin karo. waxay u baahan yihiin macalin macquula oo difaaca iyo weerarka isku dheelitira ayay u baahan yihiin. marka Pep Guardiola xagge ayuu aadi doonaa? waxaan ogaan doonaa maalmaha nagu soo socda ayaan ogaan doonaa. waxayna u badnaan doontaa inuu wadan uu qabto ayay u badnaan doontaa, laakiin hadda wadanka Talyaaniga ayay u badan tahay. ma dhici kartaa in Ingiriiska uu ka xado oo dib uu la soo wareego Pep Guardiola oo xulka Ingiriiska uu qabto? wax walba ayaa dhici karo, bal waa sugaynaa xaaladda sida ay ku dhammaato.